madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad oo khadka telefoonka la xiriiray madaxweyne Vladimir Putin ayaa bogaadiyay duulaanka militari ee Ruushku ku qaaday Ukraine isagoo cambaarayay waxa uu ugu yeedhay kalsooni darrada reer galbeedka ee ku hareeraysan. Al-Assad ayaa sheegay wixii ka dhacay Jimcihii Ukraine inay tahay sicitaanka taariikhda iyo dib u soo celinta dheelitirka taasoo ka lantay dunida kadib markii uu burburay midowgii Sovieti. Wakaaladda wararka ee Astana ayaa sidana tiri Al-Assad waxa uu intaas ku daray Suuriya waxay garab taagan tahay Ruushka iyadoo ku salaysan xukunkeeda ah mowqifkeedu yahay sicitaanka iyo sababta oo ah inay ka hortagaan isballaarinta NATO. Ruushka waxa uu xaq u leeyahay inuu arrintaasi ka hortago Dimashq iyo xulafada adag ee Moscow. Waxa cusub mudan inuu Ruushku soo farageliyo dagaalkii sokeeye ee Suuriya ka qarxay 2015 iyagoo qaaday weeraro cirka ah si ay uga hortagaan xoogagga halganka Al-Assad ee ka soo horjeeda jimhadaha kala duwan ee mucaaradka ku ah dowladda. Soo faragelinta Ruushka ee Syria ayaa calaamad u ah isbeddelka colaadeed waxayna awood siinaysaa xoogagii taageersanaa xukuumadda Bashar al-Assad in dib u soo ceshtaan dhulkii laga qabsaday iyo guuleystaba joog ka gaadhay jabhadda kuwaas oo ku lag duqeymo dhimasho iyo dhaawacba keenay ka badan 360,000 oo askari oo ka tirsan militariga Ruushka ayaa la geeyay Syria intii lagu guda jiray kulanka telefoonka ah Jimcihii. Al-Assad waxa uu yiri wadamada reer galbeedka ayaa mas'uul ka ah foodada iyo dhiigga daadanaya qaybo ka mid ah adduunka isagoo oo ku eedeeyay inay adeegsanayaan habab hoos ahaan si ay u taageeraan argagixisada Syria iyo Ukraine. Dagaalka Syria ayaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen ku dhawaad 5 milyan qof 10 milyan oo kalena ay ku barakaceen tan iyo markii uu bilaabmay olole ka dhan ah mudaharaadayaal dowladda ka soo horjeeday oo ka dhacay 2011 dalka Syria. Abdulrahman Maxamed CBA Hargeysa.